صحفيين فرنسيسا oo dalkani Somaliland u yimid in ay ka diyaariyaan warbixino ku saabsan dhinacyada dimuqraadiyadda, horumarka dhaqaalaha iyo doorashooyinka iyo la dagaalanka burcadbadeeda, nabadgelyada iyo nolosha bulshada reer Somaliland ayaa lagu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ah ee Berbera waxaana qaabilay Cabdicasiis Axmed Muuse oo kamid ah qurbajooga reer Somaliland ee France-ka Mac iyo Orifal oo ka tirsan telefishinka France 24 ayaa tilmaamay inuu socdaalkan yahay kii u horeeyay ay Somaliland ku yimaadeen waxaana tibaaxeen in ay Somaliland in badan ka maqlayeen warbaahinta talaabooyinka ay gaadhay iyo horumarka ka socda waxaana ay rajaynaynaa bay yiraahdeen in aanu u gudbino caalamka waxa dalkani ka jiro iyo waxa uu baahida u qabo. We are here for some reports for French TV and for some newspapers in France. The purpose of the report is to try to demonstrate to Europe and to France, especially to France, how Somaliland could be departure of peacekeeping in all the area. I mean, peace in all the area could begin in Somaliland. And so we think that here in Somaliland might be a special place for democracy to start in the region. It's your first time to come to Somaliland? Yes, it's our first time in Somaliland. Cabdicasiis ayaa sheegay in ay tani wax ka tari doonto halganka ictiraaf raadinta Jamhuuriyadda Somaliland waa markii ugu horeysay ay Somaliland yimaadaan suxufiyiin ka tirsan telefishinka dalkaasi Faransiiska kuwaasi oo u gudbin doona caalamka guulaha qarankani ka gaadhay dawladnimada iyo baahida uu qabo ictiraaf caalami ah iskaashanaya bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Faransiiska. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka caalamiga ah Home Cable TV, Berbera.